السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتك وحرن فاتوش channel سود وهذا أد بدو ما هسنتي سامركز وحرنتين ما أنتوا حرب قصة كندا كذا عضي أنا إنكرش كيو قصوين كأنا يابي يعني عجب قري مركز وحن علينا أصحابتي ذا لو ذا أقول وحكوا صاب سنت هاي فمل أمانيني ناقص قو المهودي أفرتودي الموضة إندها ليري وابيريا وحماركها iyo waxay u sameynayaan wax sabaaysi u sameyn doonaan assalaamu calaykum asxaabta ku soo dhawaada Fatish Family Online Store halkaas oo aad ka heli kartid daahiyadii ugu dambeeyay dhisaymadii ugu dambeeyay daahiya summer iyo winter ah sidoo kale waxaan ku haynaa roogag aad uga heli doontid 50 state-ka waan sameeyaa shipping sidoo kale hadda diganta Twin Cities-kina waaxidooda delivery ayaan sameynaa sharaxaadii alaabtii waa lagu keenay aad u qurux badan hadii aad interest gareynaysid nala soo xiriir hadii aan qisada ku bilaawno familka waxay ka dhacday Canada waaye cunugooda ugu horeeyay markay dhaleen familka ayaa waxa dhacday ayagu cunugooda haysta ay waxa arkay cunugooda oo indhaha waxba ka arkaynin ma ahan oo yani ma aragtay ilmaha marka asleeda waxa ma arkayna wax kasta waxay ka arkaynin ay tahay waxa dhacday isbitaalka ay u qaadeen isbitaalka markay u qaadeen waxa la yiri cunugiina waxa uu qabaa cudur magacaas leh oo dadka indhaha ka tuura oo fir ah ayuu qabaa si tartiib cunugu u joogana indhaha dhac uu iska beelaya koodii labaad ee dhac sidoo kale kii saddexaad ee dhac sidoo kale kii afraad afartoodii ilmo marka waxay ku leedahay hooyada sida hooyooyinka ilmahooda aad waalidka ugu jecel yihiin ku tusaysaa waxa ay ku leedahay dhakhtarkii wuxuu igu yiri intuusan indhabeelin waxaan u sameeyay waa aragtay dhaqaatiirta waxay ku dhahay cunug waxaas u sameeyay waxda yani cunug kasta ilaa meeshu raba hala aado inta u sameeyay waxa la yiri intuusan beelin indhaha tus hada buugaagta oo aqribaa lagu buuga oo aqri sawirka yani soo wax badan maskaxdiisa ku shub si hadhow waxaas markoo buugaagtaas uga aqrisid picture-da oo hadhow marka ku tiraadi magacii wixii ay sheegtay dhac waxa xasuusto inuu arki jiray waxa xasuusto marka memory-giisa buux waxay leedahay hooyadan waxba ikali gareey ku tira maskaxda dhac ka waran hadii waxaan uu kule dhakhtarku caadi ugu u tus hadii aad ka waran live usoo tustid oo yani عادي وتستبع كوسا قال حلو ده عنق بوجا زوجة وعقري وبمالها الغضة الحيسة كورة السجيب هدان جيت رسوا ممرق وجمع فعلا مركه هذا أنا عبها عاني جارين وحق من كذا أيوة كشقة مال حرام عف ماذا مركه أيوة بقيب بيقولين عدة تجد كذا لكن واحد هذا وحن ربايتر أفرت هذا المود المهيج أنت عنن intaysan indhabeelin oo completely afartaba indhaha lumin waxaan rabaa adduunka dhan inaan soo tuso ajaa'ib ka war waxay dhahdaa waxaan rabaa inaan wadan kasta iyo meel kasta iyo xayawaan kasta aan soo tuso si hadhow markay indhaha u beelaan markaa ku tiraado kale amal oo kale libax marka tiraadi oo dhin horta libax ma wax yar baan because qofka hadduu indhaha waligiis waxba ka arkin ma ku sheegi karo wixii yaa laakiin qofka hadii amar ku dhaco libax caadi uu soo arki jiray oo maskaxdiisa caadi indhihiisa caadi soo arkay hadhow libax marka tiraadi uu dareemaya uu qiyaasaya uu maskaxdiisii buu ka picture gareynaya asagoo libax arkaya amal oo kale ayuu ka picture gareynaya marka hooyadan iyo aabahan saas bayna shaqadoodu waa laga fasax qaatay waxa la goostay hal sano oo dalxiis waxa ay farasti tageen Afrika horta waxa ku dhacay koroonihii interrupt gareey waqtigii bixi rabeen koroonihii ayaa 2 sano fariisiyay hadda 2 sano ilmaha indhaha ka beelayeen kor way xanaaq cilba u dhiman leh soo hadda March bishii saddexaad ee sanadkan 2022 ay waxay bilaabeen socodkoodii safarka ayadoo labadooda qof shaqadii ka fasax qaatay ilbihii wali ma indhabeelin laakiin de siday ka arkayaan soo yaraanay marka waxa la hadda wax way arkayaan laakiin waxa ku dhici doonta markay rabtaba ahaatee in ay say u joogan complete shutdown sameeyaan oo indhuhu ka istaagaan mana la daaweyn karaayo lagu yiri marka waxay goosteen hal sano oo ah to Africa ayay tageen Afrika ayay tageen meel badan Afrika kamida waxay tageen xayawaanka waxay soo arkeen
all يعني elephant soo arkeen ilmihii soo tuseen meelaha xayawaanada dhan oo laga arkay soo arkeen Afrika waxa ay goosteen haddana bil kale oo Turki ay aad safar ugu mareen hadda waxay marayaan Indonesia ay marayaan intaas waxay rabaan Europe oo dhan meel kasta inay soo maraan ilmahooda picture uga soo qaadaan ku soo sawiraan soo taabsiyaan soo arkaan waxay dheen ilaa inta ay ka indhabeelay intaas safar ayaan ku jireena oo waxaan rabnaa in markii aan halkaasna soo dhamaysan kullee hadhowna sii weydi doonaan inay ayagoo hadhow waxay ku leeyihiin aan maskaxdooda ka buuxiyo wax kasta inta tabartay aan soo tuso haddii ahaan leed wadan haddii ahaan leed xayawaan haddii ahaan leed duur haddii ahaan leed magaalo dhaqamadooda wax kasta si hadhow waxay taagan tahay hooyada aabba waxay taagan hadhow ilmahayga markii ay indha beelaan aanan aysan u dhihin waxaasi maxay ahaayeen ee maskaxdooda soo xasuustaan kaba soo qaadadi maanta hooyadii aabbi ay ku ilmihii indhala ee Turki tagaan Turki hal bil ay soo joogeen way yaqaan waxay maqaaxiib la fadhinaa waa tii saas oo tagi jirnay doon hebel waa mid raaci jirnay magaalo hebel waa meeshan ku dalxiis jirnay biyana hadda ku dhex jirnay waa hadda ka hor imaatay waqtiga tii qofkii uu picture gareysana waa run oo wax aqal soo marka waxa ku tusaysaa extentiga hooyada iyo ab waalidka iska wad dhaba waalidkii ilmahooda jecel ay u marayaan waqtiga u marayaan ilmaha waxa waaye 11 waa 12 sano cunugooda ugu weyn 9 jir baa ku xiga 5 jir baa ku xiga 9 jir 7 jir baa ku xiga 5 jir baa ugu yar 5 jir baa ugu yar marka alxamdulillah qofka ilmo lahayn ilaahay hasiisto inteena leen ilaahay ha noo xifdiyo intii ka xanuunsantaan ilaahay ha u caafiyo waxay aad sidoo kale aad waxay ii xasuusisay hadda in kama sheekeen doono dad badan oo kale internetka kala socdaan waxay tusisay hooyadaan yani barbardhig maskaxdeena bini'aadanka cajiib waaye hooyadaan iyo aabbahan waad aragteen afartooda ilmood waxay u sameynayaan iyo xadkay u aadayaan maalin dhaweyd yani inta wadan u marayaan iyo dhib ay u marayaan because ilmahoodii indha beelaya waxaa kaloo jirta in Canada ay ka dhacdo qisas wiil awal inay Canada ku noolaan jireen ma ogeyn qisadaas waa inay soo ka farqayn doona maalmaha dhan baa rabay inaan sheego يعني isbarbardhig iyo wiilkii Soomaaliga intuu soo fariistay ilmihiisa yar waxaad ogeydeen ku tilmaamay kulli dad badan waa arkeen laakiin intiina arkina ana in kaga soo sheekeynaa marka waalidiintu ya aad bay u kala fogyiin aad ay u kala fogeen ama gaar ah ama muslim ah imagine kuna ku aan dhaqaaqo kirin ay waxaan ogaa ku tilmaamay marka aad bay qisadan ay cajab gelisay iyo aqliga iyo fikirka ee maamadaas la imaatay hooyadaas la imaatay imagine qof dhan oo leeyahay afarta ilmaheedina xabad uma harin afartiba indhoole ka noqon xajaa'ib balfiir ولنا قصي قناع سن أيدين كذي إلين أنت صامر سين كرنا وصامر سين العلمين هذا ده إن دبلان ده أنت كلنا كمان تبهر إنه للشود وحلقة يابا إن دبل كان إنه دعنا ولا يابا لكن أكتر كهدوب مجد الله شيء قدر حنون كسؤاليري وصعد قف يسك استاجين دم وده مركب وحواي وح عجيب أواي مركب قصص حتى تور كودي وكتير كل استور كود أنا قاعد بن قدام بتشوجي حتى إندونيسيا أي جوجان هذا تريب كود حال بالمية هرترك حال بري جوجان إندونيسيا هذا جوجان مركب وطن كتاعن أخسك مع عرلان وحي ربان إن أنت دجنادان مالك التصامر مرام بقص وحي كودان إن ماشي الماس حسوس قصة وحيان حسوس because ما أنت تكتب one week شوكتك عارف تحبك مشاكل لكن ماشي أنت جوري كدكتيد وعادي ودكتيد أو بيل شوكتيد أو دلحيس كوب بديسيد أو صعد كوب بديسيد وحيكون نقارن سامال حسوس قوية أو مالها قديم جان أكيد تكتمال عاد حسوسنا يصير مركا قصة بأننا وذاقوي ويوينك والدين إن المها إن أدلوا تحضروا أو ما شاء الله ده ولا كان فكرة وحيسين هي أنا كل فكرة عاد بنور العي الله عافية رهنا والمير الصقير أبدو ما سنتنا أصحابتك وحنا فاتوش فاميلي يفاتوش channel بقى لو هذا channel بسبسكرايب صار إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.